exponential equation kan ayaan rabaa inaan uga shaqeeyo videogan basiskuna way kala duwan yihiin sidaad la socotiin. marka waxaan isticmaalaynaa conceptigii qoraysay log a to power r haddaad haysatid log a to power r basekeeduna uu b yahay, marka waxaad u qori kartaa r log a to base b. wax weyn meesha kuma yaalo, waxaa weeyaan log haddii aad introduce garaysid, haddaad log introduce garaysid r-ka waad soo dejin kartaa weyn macnaheedu. a-du waa numberka, for example hadda annaga a-deenu waa 10, r-teenuna waa powerka waa 5 minus x. somaydan garan 5 minus x waa r-teena, a-deenuna waa 10, base-teenuna waa la qariyaa, baseka waa la qariyaa badanaa waana to base 10. badanaa log keligiisa dad aragtid waa log base 10 oo saasaa loo qoraa log base 10 hoosaa lagu qoraa, laakiin badanaa lama show gareeyo, badanaa waxaa la qoraa numberka inta ku yaala. hadda 10 tan oo kale log 8 to base 10 weeyaan, dhankan kalena waxaa weeyaan log 10 waa baseku waa 10, intan waxaa noo saaran 10, powerkana waa 5 minus x. marka badanaa waa sidaas. The amazing thing waxaa weeyaan log 10 markaad haysatid log 10 to base 10 badanaa waxaa weeyaan waa 1. any log, a log of a number with the base of the same number waa equal to 1. marka log 10 to base 10 haddii aad haysatid log 2 to base 2 waa still 1. any log to the base of itself waxaa weeyaan equal to 1. marka midda waa concept ayadana muhiima ina ogaatiin. log 10 to base 10 is equal to 1. not necessarily log 10 to base 10, any number log 2 to base 2, log 4 to base 4 is equal to 1. لكن هذا ما دام أنا استعماله أما the most common هي log 10 to base 10. that's why I take it to unique because log 10 وحويان was the most commonly log used. anyway عن وصل لعبنا question كينا وحي قريسي سدة marka haddii aan introduce garayno log labada dhinac log soo qaado 10 ayaan haysanaa power 5 minus x is equals to log asagana soo qaado 8. saan idiin sheegay baseka u qarsoon waa maxay, waa base 10. log 10 inta waa base 10, intana waa base 10, laakiin lama show gareeyo, lama qoro. badanaa waxaa la show gareeyaa other numbers base 2, base 3, kuwaas waa la show gareeyaa oo waa la tusaa macnaha markii la qorayo. okay marka the next step waxa weeyaan inaan powerkii aan soo dejino. marka waxay noqonaysaa 5 minus x labadooda bracket ii geli log times log 10 is equals to log 8. waxaan idiin sheegay log 10 waxa weeyaan waa 1, marka waxa weeyaan ma qorino, waan iska dhaafayna. waxaan leenahay 5 minus x waxay la mid tahay log 8. dhankan minus x ta xagga iigay log 8 kana inta keeno, marka log 8 haddaan inta keeno waxay noqonaysaa 5 minus log 8 is equals to minus x ga dhinaca kale markaan geeyo x basay noqonaysaa 5 minus log 8 waxaa weeyaan haddii aad calculatorka aad calculate garayso waxaa kusoo baxay 0.903 is equals to x way la mid tahay. marka x waxaa weeyaan waa 4.096 yep. marka ansadu waa midaas to 4 decimal places.
waa x waxay la mid tahay 4.0969 ay la mid tahay x2 marka waa midda haddaan isticmaalna log saan idin sheegay the only concept oo ku cusub meesha waxaa weeyaan log 10 waa equal to 1 log 10 waa equal to 1 log hadda introduce gaysina powerka waa soo dejinayaa log hadda introduce gaysay powerka inta jirtay wuu soo dejinayaa oo intuu keenaya midda waa haddaan log isticmaalno waxaan kaloo isticmaali karnaa lon waxa loo yaqaano waxaan malaynayaa calculatorka waad ku aragteen both log iyo lon marka haddii aan isticmaalno lon waxay noqonaysaa lon waxay noqonaysaa lon 10 power 5 minus x waxay la mid tahay lon 8 isku wax bayna siinayaan lon aan inta gelinayna intana lon aan gelinayna 5 minus x ka soo deji 5 minus x bracket keeda ii geli lon 10 waxay la mid tahay lon 8 marka waxaan sameynaynaa dhankan bisaan rabo inaan kusoo reebo 5 minus x marka 5 minus x bisa inta igu reeb lon 10 kan labada dhinac u qaybi marka lon 10 is equals to lon 8 soma marka divide by lon 10 labada dhinac dheh marka طبعا inta 1 ku siinaya marka isu qaybisid waxa ku soo haraya 5 minus x waxay la mid tahay lon 8 oo laba lon 10 5 minus x haddii 5 minus x markaan qorno haddii lon 8 u qaybisid lon 10 waxa kuu soo baxaya 0.903 ay kuu soo baxaysaa marka waxaan rabnaa inaan x dhinaca kale inaan geyno marka dhinaca kale haddaan geyno positive uu noqonayaa midkan kale haddaan dhankan keenana waxay noqonaysaa minus marka waxay noqonaysaa 5 minus 0.903 marka waxaa noo soo baxay x inay la mid tahay 4.0969 marka wakaas isku wax baan keennay markii aan log iyo lon aan isticmaalnay marka labaduba waa very important tools oo waxay nagu caawinayaan inaan powerkii inaan exponential equation markii basisku ay kala duwan yihiin aan ka shaqayn karno marka waxaan rajeynayaa aad fahmaysiin haddaad fahmi weyseen ila soo socodsiiya ama comment kusoo qora youtube-ka si faan isku dayo inaan idiin caawiyo